ma isweydiisay sidee ayay jasiirad yar oo aan lahayn shidaal, dahab, beero ama ciidan xooggan ugu guuleysatay in ay noqoto mid ka mid ah dalalka ugu qanisan uguna nidaamka fiican dunida? ma aaminaysaa in hogaamiye kaligiis ah uu hogaamiyey isbeddelkaas isaga oo ka bilaabay dal sabool ah ilaa uu ka dhigay waddan ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan adduunka oo kaalmaha horena kaga jira horumarka dunida? wax kasta waxay isbedeleen maalintii hogaamiyahaasi uu ku hor ooyay shacabka, balse ilmadaasi ay noqotay bilowga mustaqbal uusan sawiran qof kasta oo jasiiradaasi ku noolaa. waxaan ka hadlaynaa Lee Kuan oo ah hogaamiyihii ugu horreeyay ee Singapore iyo aas-aasaha dalkaasi. waa ninkii ka dhigay Singapore mucjisada adduunka. Master Lee Kuan waxa uu dhashay 16 Sebteembar sanadkii 1923 waxa uuna dhintay 23 Maarso ee 2015, balse taariikhdiisa siyaasadeed waxay ka dhigtay magac weligiis nool oo ka soo muuqda buugga hogaaminta. waxa uu ahaa aas-aasaha iyo ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Singapore, hogaamiyey muddo ka badan 30 sano, isagoo markasta ka fikirayay sidii uu dalkiisa uga dhigi lahaa mid la qiimeeyo. sanadkii 1963 Singapore waxay ku biirtay Malaysia iyadoo rajaynaysa midnimo dhaqaale iyo siyaasadeed in ay ka dhalan doonto. hogaamiyayaasha Malaysia waxay ka baqeen saamiga dhaqaalaha ee ay Singapore ku lahayd iyo saameynta weyn ee bulshada Shiineeska ah ee halkaasi ku badan. xiisadda ayaa sababtay in 9 Agoosto 1965 Malaysia in ay si rasmi ah u go'aansato in ay iska ceeriso jasiiradda Singapore oo nidaamkeeda ay ka saarto. maalintaasi ayaa ahayd markii uu Master Lee, hogaamiyihii Singapore, uu ka soo muuqday telefishinka isaga oo oynaya. waxa uu yiri, waa maalintii ugu murugada badneed noloshayda. ilmadaasi waxay ahayd mid ka mid ah ogaalka culayska hor yaalla. qaran yar oo aan lahayn khayraad dabiici ah, biyo ku filan ama ciidan, kuna tiirsan dekedda yar iyo maskaxda dadka. caalamka intiisa badan waxa uu aaminsanaa in Singapore aysan socon karin iyada oo madax bannaan. laakiin Master Lee, hogaamiyihii Singapore, waxa uu go'aansaday in ilmadaasi aysan noqonin calaamad guuldarro, balse ay noqoto bilow dagaal cusub oo nabad ah. ma uusan hayn malaayiin dollar iyo dhaqaale kale, mana uusan ku caban in dunida ay ka soo gaarto oo nabad ilaalin iyo kab miisaaniyadeed ama mashaariic dalkiisa la siiyo, balse waxa uu la yimid qorshe 3 tiir ku dhisan: dawlad hufan oo musuqmaasuq ka maran, waxbarasho tayaysan oo ku xidhan suuqa caalamka, iyo dhaqaale ku dhisan soo jiidashada maalgashiga shisheeye. Master Lee, hogaamiyihii Singapore, waxa uu sharciyo adag ku joojiyay musuqmaasuqa, waxa uuna xil kasta ku xiray mas'uuliyad cad. waxa uu dadka ku qanciyay in canshuuraha lagu bixiyo horumarka ayna jirin cid ka sareysa sharciga. shirkadaha caalamka ayuu ku soo jiitay canshuur dhimis, sharciyo fudud iyo jawi ammaan ah. waxbarashada waxa uu ka dhigay tiirka isbeddelka. carruurta waxa wax lagu barayay af Ingiriisi si ay u galaan suuqa shaqada ee caalamka, iyadoo sidoo kale la ilaalinayo afafka iyo dhaqamada kale ee uu leeyahay Singapore. waxa uu xoogga saaray sayniska, tiknoolajiyadda iyo maamulka si uu dalka ugu abuuro dhaqaale, aqoon iyo anshax sare leh. nadaafadda iyo kaabayaasha magaalada ayaa noqotay astaanta muuqata ee Singapore. wadooyin iyo deked casri ah, biyo nadiif ah oo guri walba gaara, magaalo cagaaran oo nidaamsan, iyo sharci adag oo ka dhan ah qashinka iyo wasaqaynta. Master Lee, hogaamiyihii Singapore, waxa uu fahmay in muuqaalka magaalo ay tahay kaarka koowaad ee ganacsi. midnimada bulshada ayuu si xeeladaysan u dhisay, waxa uuna mamnuucay in qowmiyado gaar ah ay ku koobnaato xaafado, isaga oo ku qasbay in bulshada ay ka kooban tahay dadka Singapore ee kala ah Malay, Shiinees iyo Hindi ayna isku dhex noolaadaan si wada jir ah, taas oo yareysay naceebka iyo kala qaybsanaanta. maanta Singapore waa xarun dhaqaale, maaliyadeed iyo tiknoolajiyadeed ee dunida ku dhex jirta heerarka ugu sarreeya. GDP-ga qofkiiba
waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya caalamka. shirkado badan oo waaweyn ayaana xarumo ku leh, dekadaheeduna waa mid ka mid ah kuwa ugu firfircoon, garoonkeeduna waa albaab caalami ah. Soomaaliya waxay ka baran kartaa casharo dowlad hufan oo aan musuqmaasuq lahayn, waxbarasho la jaan qaadaysa suuqa shaqada, amni iyo midnimo bulsho oo laga hormariyo khilaafyada, iyo qorshe dhaqaale oo soo jiida maalgashi shisheeye iyadoo la adeegsanayo kheyraadka dabiiciga ah ee jira. isbeddelka Singapore ma ahayn mucjiso samada ka yimid ama ka soo dhacay, ee waxa uu ahaa natiijada hoggaan geesi ah, aragti cad iyo shaqo joogto ah. haddii madaxda Soomaaliyeed ay qaataan qaabkan iyaga oo ku habeynaya daruufaha dalka, waxaa suuragal ah in Soomaaliya ay ka soo kabato oo ay noqoto dal dadku ay ku faanaan. Master Lee Kuan, hogaamiyihii ugu horreeyay ee Singapore, waxa uu marag u yahay in dal kasta oo hoggaan dhab ah yeesho uu ka guuri karo saboolnimada una guuri karo hodantinimo haddii uu diyaarsan yahay qorshe la dhaqan geliyo, go'aan cad iyo nidaam cadaalad ah. bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalka laag saar oo sii sheer gare.